magacaygu waa Faarax waxaan ku noolahay qurbaha waxaan ka imi Soomaaliya waxaan ahaa Islaam haddana waxaan ahay Kristan Ciise Masiix waa Ilaahayga waa badbaadiyahayga Jesus isaga aniga soo helay isaga ii yimid Jesus anigu quraanka xataa inuu nabi ahaa baan u haystay oo ma garanaysaa laakiin awood intaa ka badan inuu leeyahay quraanku ma sheegin wax badan baa la qariyay oo laga qariyay markaan ahaa muslimka laakiin Ciise Masiix isaga soo doontay oo jidkayga yimi oo isoo helay oo iga badbaadiyay mugdiga oo igeeyay iftiinka wuxuu iga soo badbaadiyay goobtii shaqo iigu yimi isaga oo mashiinkayga aan ku shaqaynayay oo aad u dhawaaqay waliba dhago ii daboolan tusay kaniisadii macbudkii rabbiga tusay yeeritaankii iyo gaambaleelkii tusay isla kaniisadiina aan tegay halkaasna ma garanaysaa ay noloshayda masiixu ka bilaabatay waa wiilkii Ilaahay isagaan caabudaa isagaan u tukadaa isagaan magaciisa ku helaa nimcada aan maanta haysto waxa weeye waxaan galay nolol fiican oo waxaan helay deganaansha qalbigan helay waxaan helay nabad gudaha ah baan helay Ciise Masiix waa Ilaahayga waxaan leeyahay u kaalaya diinta saxda ah ka kaalaya shaydaanka ka soo baxa islaamka leeyahay oo u kaalaya kristanka waxaad ka helaysaan nolosha weligeed ah waxaad ka helaysaan ballanqaad rasmi ah oo aad ku tegaysaan jannada islaamka markaan ahaa ma hubin inaan jannada tegayo iyo inaan cadaabta tegayo maan ogeyn laakiin ballanqaad rasmi ah waxaan ka helay Ciise Masiix marka ma doonayo inaan iftiinka iyo nimcada rabbiga qariyo waxaan doonayaa inaan sheego oo idiin sheego inay jirto nolol ka duwan ka fudud ka fiican ballanqaad leh deganaan oo noloshan kooxada hoose dhimashada ah iyo tan dambe ee jannada ee aakhiro ballanqaad rasmi ah iyo nolol degan iyo maartay shaydaanka oo aan awood kugu yeelanayn oo aad ku noolaanayso nolol la hubo waxay taallaa kristanka kaniisada kaalaya u imaada kaniisada rabbiga karooskiina soo wada qaata dhammaantiin rabbigu wuu jecel yahay dadka oo dhan laakiin Allah oo lagu caabudayo islaamka kaliya wuxuu u naxariisanayay kuwa islaamka kaliya uu naxariisanayay laakiin Ciise Kristus wuxuu u dhintay bini aadamka oo dhan ayuu isku talaabta loogu qodbay oo u horay dhiigiisa waxaana nimcada iyo ballanqaadka iyo nolosha weligeed heli doona kuwii qirta isaga inuu u bixiyay hadiyada noocaasa mana ahayn waxaan kasbanay ama aan u qalanay laakiin Ilaahay jacaylkiisa ayuu ku muujinayay Ilaahay shuruud la'aan ayuu maartay ballanqaadka iyo nolosha weligeed nagu siiyay waxaan Ilaahay idin weydiinayaa inaad kulligii badbaadaan u kaalaya Masiixa shaydaanku lama heshiiyo iftiinka sababtoo ah wuu dhibayaa marka wuu iska jiraa persecution wuu jiraa aad buu u badan yahay laakiin waxaan ku kalsoonahay rabbigeena awoodda sare iska leh ma garanaysaa nimcadiisa aan ku helay nolosha weligeed waxaan idiin sheegayaa qofka hal mar buu dhashaa dunidan hal mar buuna dhintaa wuxuu qofku ku leeyahay oo noloshiisa xukumaa intaa u dhaxaysa dhalashadiisa iyo dhimashadiisa waxaana idinkula dardaarmayaa inaad go'aamo fiican naftiinna u qaataan kuwaas oo aakhirana u wanaagsan adduunkiinnana u wanaagsan oo noloshaada adiga mas-uulka ah aabbaha mas-uulka ma aha hooyadaa mas-uulka ma aha adduunka waxaad ku leedahay intaa ku dhex jirto oo u dhaxaysa dhalashadaada iyo dhimashadaada marka waxaan leeyahay xariga shaydaanka hala jaro ha loo yimaado iftiinka iyo nuurka karooskiina soo qaata kaniisada rabbigana ha la yimaado